total ee magaalada Hargeysa halkan ayay socodka ka bilaabeen axsaabta mucaaradka ee Soomaaliland kuwaasi oo halkan ay isku soo baxeen shacbi aad u tiro badan iyagoo shacbigaasi muujinayay shucuurtooda ay ku taageerayaan axsaabta mucaaradka waxaan in sheegayaa horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabadgelyaha inuu dhameeyo mudaharaadkeena waxaan leenahay xaq waxaan muujinaa dareenkeena waxaan muujinaa mudaharaadoodu dhaca markaa dawladda markaa joogta ay xilkeeda ka soo bixi weydo mid distoor shab iyo mid dhaqaale iyo mid nabadgelyo midkiiba dawladdan way ku fashilantay sidaa awgeed waxaan doonayaa mudaharaadka waa la fasaxay waa la inoo ogolaaday waa isla dhamaysanay waa sharci haddii ay markayna yidhaaheen waddooyinka ay naga xidheen xaruntii waddani baynu tegaynaa xaruntii waddani imankaasa xabad lagu dhiftay ma geeyaan shacabku xabad in lagu dhifto xaq looguma laha xuquuqdoodii weeye ma ogolin waxaanu doonaynaa in isbeddel la sameeyo nololeed dadka maciishadoodii iyo noloshoodii cidhiidhiga ku jirto in isbeddel la sameeyo oo maamulka ku faylgaroobay meesha laga saaro maamulka ku faylgaroobay ee ku guuldaraystay in meesha laga saaro waxaanu doonaynaa in doorasho dhacdo sow doorasho dooni mayno doorashaynu doonaynaa nabadgelyaynu doonaynaa horumar baynu doonaynaa waxaanu leenahay joojiya waa faylgarowdeen wakhtigiinni wuu dhammaaday nadhaafa bulshada dhaafa wakhtigiinni wuu dhammaado nadhaafa hadda waa 2 daqiiqo 3 daqiiqo horteed in xabad lagu dhuftay u joogi mayno laakiin arrimaha waa dad la soo diray qofka waxaa samaynaya ma aha ciidamadeennii innaga inoo damqanayay ciidamadeennu waxaa ma sameeyaan waxaan idinka codsanayaa inay idin xajisataan halkiinna nambarkeennana annaguna waxaannu nahay kuwa idin horgelaya sidaasay noo ballana